Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday waddanka Japan. Wiil dhalinyaro ah oo afduubtay diyaarad kadibna dilay kabtankii diyaaradda si uu ugu caddeeyo laamaha ammaanka ee eeraboorka magaalada Tokyo inay eeraboorka ka jiraan daldaloolo dhanka ammaanka ah. Laakiin intaana u gelin muuqaalka maanta haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo booqata kanaalka halmaami subscribe like waa muhiim tiina share garay oo la wadaag asxaabtaada aan u galno muuqaalkeena maanta. 23-kii July sanadkii 1999 diyaarad nooceedu yahay Boeing 747-481D ayaa ka duushay eeraboorka magaalada Tokyo oo lagu magacaabo Haneda. Diyaaraddu waxay ku sii jeeday magaalo lagu magacaabo Chitose waxaana lahaa shirkad lagu magacaabo ANA. Diyaaradda waxaa saaraa 503 rikaab ah oo ay ka mid yihiin 14 carruur ah iyo 14 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Daqiiqado kadib markii diyaaraddii ay duushay, diyaaraddii waa la afduubtay waxaana afduubtay nin lagu magacaabo Yuji Nishizawa. Yuji wuxuu dhashay September sanadkii 1970 wuxuuna ku dhashay magaalada caasimadda Japan ee Tokyo. Yuji tan iyo yaraantiisa riyadiisu waxay ahayd inuu noqdo duuliye, laakiin riyadiisa iyo nolosha uu ku nool yahay aad ayay u kala fogaayeen. Xilligaa Yuji wuxuu ahaa 28 jir shaqo la'aan ah oo waalidkiis la nool. 23-kii July 1999 Yuji waxaa u suurta gashay inuu ku safro diyaarad isagoo rikaab ah ma aha isagoo duuliye ah. Diyaaraddu waxay ka baxday magaalada Tokyo waxayna ku sii jeeday magaalo kale oo lagu magacaabo Chitose waxaana iska lahayd shirkad lagu magacaabo ANA waxayna ahayd duulimaadka 61. Diyaaraddu markii ay garoonka ka kacday 25 daqiiqo kadib Yuji wuxuu ka soo istaagay booskii uu ka fadhiyay diyaaradda wuxuuna soo aaday qaybta hore ee diyaaradda. Mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo dumarka ah ayaa ku tiri Yuji fadhiiso, isna waa uu iska dhaga tiray hadalkeeda kadibna waxay ka soo istaagtay booskii ay fadhiday si ay u fadhiisiday Yuji. Isagana wuxuu midi kala soo baxay marihiisa hoosteeda kadibna qoorta ayuu ka saaray wuxuuna ku yiri gabadhii haddaad doonaysa inaad noolaato oo aadan dhiman waa inaad furtaa qolka laga wado diyaaradda qolka ay kabtanka iyo ku jiraan. Kadibna way u furtay qolkii. Markii uu soo galay qolka isla markiiba caawiyaha pilotka ama duuliyaha ayuu ku amray inuu ka baxo qolka waxaana ku soo haray isaga iyo duuliyaha. Wuxuu ku yiri duuliyaha oo lagu magacaabo Naoki Nagashima oo 51 jir ah xilliga waa inaad diyaaradda ka dejidaa eeraboor ku dhex yaala saldhig military oo ay Mareykanku ku leeyihiin galbeedka magaalada Tokyo. Laakiin waa uu diiday pilotkii sababtoo ah inuu aado eeraboorkaas iyadoon la ogeyn waxay khatar ku tahay nabadgelyada diyaaradda. Markii uu diiday Yuji wuxuu xabadka kaga muday mididii uu watay duuliyihii kadibna waa uu iska wareejiyay wuxuuna ku fariistay kursiga duuliyaha. Laakiin maadaama uusan diyaaradda wadi aqoon waa uu iska taabtay arrinkaas oo keenay diyaaraddu inay soo dhacdo oo dhanka hoose ay u soo dhacdo. Xilligaas waxay ku guuleysteen caawiyihii duuliyaha iyo qaar ka mid ah rakaabkii diyaaradda inay dib u soo galaan mar kale qolkii duuliyaha. Waxay si xoog ku qabteen Yuji kadibna waa ay xirxireen wuxuuna ku guuleystay duuliyihii diyaaraddu inuu dib uga dejiyay eeraboorka Tokyo inuu dib ugu soo celiyo. Laakiin kabtankii diyaaradda intii aan la dilin ka hor markii Yuji uu qolka soo galay wuxuu ku guuleystay inuu fariin u diro booliska magaalada Tokyo una sheegay in diyaaradda la afduubtay. Sidaas darteed markii caawiyihii duuliyuhu uu diyaaradda dib u soo dejiyay booliska iyo ambalaasku waxay ku sugayeen diyaaradda eeraboorka. Markii ay diyaaradda soo degtay isla markiiba waxay xireen Yuji sidoo kale waxay isbitaalka u qaadeen kabtankii. Laakiin kabtankii waa uu dhintay oo ay ka gaari waayeen. Boolisku waxay bilaabeen inay baaraan alaabtiisa waxayna ka dhex heleen tikid kale. Saasna waxay ku ogaadeen inuu doonayo Yuji maalinka uu safray inuu doonayo maalinkii ka horreeyay inuu safro. Laakiin uma aysan suurtagelin maalinkan ayuu safray. Markii ay isku dayeen inay wareystaan waxba u sheegay markii hore waa uu qeexinay laakiin muddo ayay sugeen. Sidoo kale waxay sameeyeen in rakaabkii diyaaradda oo dhan ay dejiyaan hoteelo guryahooda uma aanay kala dirin si ay ugu sahlanaato haddii ay doonaan inay wareystaan oo macluumaad ka ogaadaan inay si sahlan hoteelka uga soo wadaan. Waxay diideen inay guryahooda u kala diraan oo ay hadhowti qof u raadiyaan. Muddo kadib Yuji waa uu ogolaaday inuu la hadlo dambi baarayaasha kadibna wuxuu u sheegay sababta ku khasabtay inuu dilka geysto. Yuji wuxuu yiri shirkadda duulimaadka ee ANA iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee eeraboorka sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo duulimaadka hawada ayuu wuxuu u diray fariimo saddexdoodaba iyo shirkado kale xataa oo duulimaadyo ka sameeya eeraboorkaas wuxuuna u sheegay inay jiraan dulduleelo dhanka ammaanka ah oo ka jira eeraboorka Tokyo. Sidoo kale wuxuu u soo bandhigay xataa in laga shaqaaleysiiyo waardiye
ahaan airportka looga shaqaaleysiiyo laakiin waxaasoo dhan cidina muhiimada ma aanay siin cidna dheg jalaq uma aanay siin hal mar ayay soo waceen laakiin wax ficil ma aanay sameyn intaa kadib muddo markii uu sugay Yuji wax jawaabana uu ka waayo wuxuu go'aansaday in dulduleelada ammaanka uu sheegayo uu tuso inay jiraan dulduleelada dhanka ammaanka oo ka hadlay waxay ahaayeen haddii qof uu transit ku yahay ama uu ku sii hakanayo airportka magaalada Tokyo tusaale ahaan diyaarad ayaa ka keentay magaalo kale kadibna wuxuu ku sii hakanayaa Tokyo kadibna waxay geynaysaa magaalo kale marka uu ka baxayo airportka Tokyo uu ku nastay uu ka baxayo lama baarayo wixii uu wato alaabta uu saaranayo ama boorsooyinka uu saaranayo diyaaradda labaad ee ka qaadaysa magaalada caasimadda Tokyo lama baarayo qorshaha Yuji isagoo wuxuu ahaa inuu ka duulo magaalada caasimadda Tokyo uu ku nool yahay kadibna uu tago magaalo kale magaaladaas uu diyaarad kale ka soo raaco isla maalinkaas kadibna uu ku hakado airportka magaalada Tokyo kadibna uu ka sii duulo uu magaalo kale u duulo 23 July ayuu ka duulay airportka Tokyo kadibna wuxuu u duulay magaalo kale intii uu ka duulin airportka wuxuu uga sii dhex tagtay boorso markii uu ka soo laabtay magaaladii kale oo uu transit ku ahaa ama uu ku sii hakanayay magaalada Tokyo uu ka soo degay diyaaradii wuxuu doontay alaabtiisii uu meesha uga tagay boorsadii kadibna wuxuu saartay diyaaradda kale oo uu ka sii raacayo magaalada Tokyo wuxuuna kala soo dhex baxay midi ugu jirta alaabta wuxuuna gashtay dharka hoostiisa markii diyaaradii ay duushana mididii ayuu la soo baxay kadibna wuxuu dilay dooliyihii diyaaradda Yuji markii ay dhageysan waayeen hadalkiisa oo fariimihiisii ay ka jawaabi waayeen wuxuu go'aansaday inuu tuso shirkadda diyaaradda iyo sidoo kale laamaha ammaanka in waxa uu ka hadlayo ay dhab yihiin sidoo kale waxay dambibaarayaashu baaritaan ku sameeyeen gurigiisa kadibna waxay ka heleen daawooyin loo cuno iktiaabka cudurka la yiraahdo ama niyad jab af Soomaaliga ereyga ugu dhow markii ay ogaadeen inuu iktiaab qabo ama uu qabo niyad jab waxay u bandhigeen dhakhaatiir caafimaad dhakhaatiirtan waxay ogaadeen sidoo kale inuu qabo cudur kale cudurkaas oo ah in garashadiisu ay yar tahay oo qofku uusan kala garanayn si fiican u kala garanayn in waxa uu sameeyay ay sax ahaayeen iyo in waxa uu sameeyay ay qalad ahaayeen qodobadaas ah inuu iktiaab qabay ama inuu jiranaa ama in ay yareed kala garashadiisu waxay ka caawiyeen in maxkamaddu dil aanay ku xukumin 2005 bishii March Yuji ugu dambeyn waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ilaa maanta waxaa filayaa inuu xabsiga ku jiro muuqaalkani maanta intaas uu ku egyahay tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagay amaanada